السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran Nimonita channel waa idin salaami waa walaashii Nimonita oo idin la isku soo noqosho wanaagsan. Maanta waa aragtaan video cusub maxaa la dhahayaa maanta qolkeyga ku duubaya videoga videoyadii aad duubayn uu ka duwan yahay. Maanta waxa idin wadaa waa aragtaan u maleynaa already meesha uu ku qoran yahay title-ka astaamaha lagu garto ninka sida dhabta ah ku jecel. Gabdho waa muhiim inaa ogaana taas, aniga waan ogaaday, adigana ogow oo ila arag. Okay, waxaan wadaa maanta 12 astaamood oo lagu garto ninka sida dhabta ah ku jecel. Way noo fiican tahay inaa ogaano ninka sida dhabta ah noo jecel waayo zamiga ah ku jirno. والله لما كل قرن كرنين كيسي دبكو جعل إنك عيار iyo sheeko kala kaawato ma fahanteen. Marka astaanta koowaad oo ku garan kartid wiilkan ama ninkan sida dhabta ah ku jecel waxa waaye wuxuu ku siinayaa waqti kuugu filan xitaa hadduu mashquulkiisu uu badan yahay. gabdho meela aragteen taas aniga waa arkay. والله بين ما هن نينكا سيدا دبتا ah ku jecel si walba uu u mashquulsan yahay adiga time kuma waayo ma fahanteen adiga ahaantaada time kuma waayo oo waa waqti walba uu mashquulsan yahay time ayuu ku siiyaa ugu filan. midda labaad hasaawihiisa hore u socod ayuu leeyahay la sheekaysigiisaba. يعني waxaan ka wadaa sheekada hore u socod ayuu leeyahay waqti walba sheekadii uu kaaga sheekeynayo kuuguma soo celcelinayo sida yani caawa haduu ku imaado oo sheeko kaaga sheekeeyo isla tii kuuguma soo celinayo bari oo sheeko ka duwan ayuu ku keenayaa. midka saddexaad hadallada uu ku adeegsanayo waa kuwa ku dheehan akhlaaq sharaf iyo alla ka cabsi si uu ku ilaaliyo sharaftaada. gabdho bal ila arka qodobkaas saddexaad hadallada uu ku adeegsanayo waa hadallo ku dheehan akhlaaq sharaf iyo alla ka cabsi si uu u ilaalinayo sharaftaada. way yartahay wiilasha laga helo halahan oo kale nala arka bal kuwa xiga. midda afaraad marka uu ku sheekeynayo hadalladiisa waa ay xadidan yihiin oo kama helaysid been iyo isla weyni. marka uu ku sheekeynayo hadalladiis kama helaysid been iyo isla weyni yani markuu ku sheekeynayo kuma faanayo wuxuusan ahayn kaaga ma sheekeynayo iyo markuu maxal dhahayo isla weyni kuma tusaayo inuu adiga ka weyn yahay oo kaleeto waxa adiga inaa hoos tahay oo kaleeto waxaas dhan kuma dareensiinayo. cajiib. midda shanaad farxad iyo murugo waa uu kula qaybsanayaa. والله تاسابين هاي هدا فرحسن تهي وكل فرحسن هاي او مركز بي ودنتها marka xanaaqsan tahay inuu kula xanaaqsan yahay oo adigaaba ka xanaaqsan ba. midda lixaad markii isku dhacdaan waa uu ku dajiyaa xitaa hadduu asiga qaldanayn. waa ogtahay gabdhaheena inaa anaga madax yarnahay marka isku dhacan xitaa hadaa anaga qaldannahay ninka sida dhabta ah ku jecel inuu ku soo noqdo ayuu ku dhahayaa iga raali ahaaw. wuxuu ku dhahayaa iga raali ahaaw. ma ogtahay sababtuu ku dhahay taas because inuu ku waayo ayuu diidayaa. isla weyne waxa la dhaho meesha agtiisa ma yaalo. inuu ku waayo ayuu diidayaa wax walbana wuu ku tanaasulayaa because adiga dartaada ayuu waxaas dhan u sameynayaa oo uu ku jecel yahay. midda toddobaad kama dhargo sheekadaada mana ka caajiso agjoogaada. cajiib. lagama yaabo inuu ka dhargo sheekadaada mana ka caajiso agjoogaaga haddaa maanta dhan ugu sheekaysid maanta jikada cunada noocaana kariye qadada kana kariye casho kana kariye maanta waxa soo aragnay ma taqaanaa hebel soo aragnay inta ka baxan kana yeel lagama yaabo inuu ka caajiso because hadalladaadu xiiseynaya agjoogaaga ayuu ka helaya kambanigaaga ayaa wax walba ah. cajiib.
waqti wax walbo aa u sheegtid ya waxa waaye wax walbo loo sheego la soo wac la iska dhaaf kan la yeelo hadalkaaga un baa ku socda xitaa daa ugu sheekeynaysid dhul tirtiritaanka ma waxa qabatay intee ka dhacday kana ka yeeshay aad ay u xiiseynaa hadalkaaga okay mid qodobka saa idinku sheegaybo qodobkeen toddobaad kama dhergo sheekadaada oo ma xisaabiyo waqtigaada mana dareemo caajis yacni ma xisaabiyo waqtiga markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa wuxuu ku imaado kaleeto kasoo qaatada waa meeq saac 6 saac duhurnimo ku imaado ilaa 11 saac ilaa 12 saac jiko iyo hadalaan loo joogin iyo waxaas un baa ka hadlaysaa asigi waqtigaasi maba xisaabina oo wuxuu leeyahay timeka hadduu fiiriyo uu arka wuxuu leeyahay timeka wuu cararaya maxaa dhacay hadda la umaado waqti waaba already ugu dhamaaday maba ilaa waqti asiga maba xisaabinayaba inta saacadooda isla joogteen because hadalkaaga ku socda ma fahanti masha Allah qodobka 8aad arin kasta oo ka codsado hadaa ka cagajido uguma cadaadinayo kumana adkeenayo ee waa uu ka tanaasulayaa si isagoo eegayo jecelkiisa idinka dhaxeeyo dal gabdho arka hadduu maanta for example uu ku dhaho soo bax meel hebel iigu imow meel hebel aadeyna aa dhahdo maya waa caajisana guriga kama soo bixi kari maanta ma bixi kari waa daalanahay kana ahay lagama yaabo inuu ku cadaadiyo mise uu ka xanaaqo ya intaasi wuxuu u sameynayaa ugu tanaasulayaa jaceelka uu ku qabo dartiisa anaga gabdhaheena waxa waaye dhibka qabna waxa waaye ninka sida dhabta ah noo jecel iyo kan aan jecleen labadooda ma kala saari karno waayo ninka sida dhabta noo jecel always waa daacad wax uu kala hadlayo waa daacad wax walba aarabootid uu ku siinayaa ma fahamtay anaga laakiin qofka beenta noo sheega aan jecelnahay badanaa gabdho waa laga fiican yahay 21st century lagu jiraa in mustaqbal sameysito waa muhiim waxa ku wanaagsan inaa ogaatid waa muhiim qofka aan nolosha la wadaagaysidna waa muhiim inaa ogaatid ma fahanteen waa muhiim inaa ogaano qofka mustaqbalka aan la wadaagayno midda 9aad farxadiisa waxa uu ka hormarinayaa adiga taada bal gabdho ila arka taasi number 9 qodobka 9aad bal nala arka farxadiisa waxa uu ka hormarinayaa adiga taada way uu saas u yeelaya because uu adigu ku jecel yahay inuu mustaqbal kula wadaago rabaa infaante inuu mustaqbal kula wadaago rabaa adigu ku jecel yahay adiga markaa faraxsan tahay waa asna farxad oo faraxsan yahay ee u dhan tahay farxadiisa infaante adiga markaa faraxsan tahay ee asna u dhan tahay oo faraxsan yahay ma garateen wallahi waa cajiib lama helo ayaantaani niman saas u fiican laakiin boqolkiiba 10 waa la arkay 10kaasna waxaa helaysa gabar aad iyo aad u nasiib badan oo adiga ah ninkaaga hadaa aad ku aragto astaamahan waa ninku jecel haysa gabarey mise hadduu saaxiibkaaga yahay mise hadduu ninkaaga yahay labadaba hadaa ku aragto astaamahan ninkaa waa ninku jecel ilaalso qodobka 10aad wax kasta oo jeceshahay ayuu kula jecel yahay bal maxaa ka nimca ka wada isleedahay qodobka wax kasta oo aad jeceshahay ayuu kula jecel yahay waxaan ka wada maanta waxa laga yaabaa asiga inuu adduunka ugu neceb yahay inaa adiga maxaa la dhahayaa soo socotid mise wareegtid mise
asiga uu jecleen laga yaabo qofku nolosha la wadaagaya inay socod badan tahay, adigana aad socod badan tahay oo aad saan u socotid oo inta ka dhacaysid oo inta ka dhacaysid. Still markuu kugu arko taasi uu mar kula hadlo oo mar labaad kula hadlo aad sameyn weyso si uu adiga kuu weynin dartiisa, wuu jecel yahay waxa adiga sameynaysto oo kama xumaanayo. xitaa haddaa socod badan tahay, wareeg badan tahay, kan tahay intaas wuxuu samee u yeelayaa inuusan adiga uu ku weynin. Cajiib. waxa kaleeto oo lagu ogaan karaa yacni wax kasta oo jecesha ah ayaa jecel ah, wax kasta aad jecesha ayuu kula jecel yahay. waxaan ka wadaa yacni mid labaad, tusaale labaadaan kuu soo qaadanaya. maanta adiga ma cuntid hilibka, asna adduunka hilib uu jecel yahay. guriga isla joogtiin, nolosha isla wadaagteen, waqti walbo adiga aad jikada ku jirto soo maha oo waxa karinaya, cunada sameynaya, wax walba qabanaya. hilibkina waa nacab tahay adiga, asigina wuu jecel yahay inuu cuno. asiga ayaa tanaasulayo oo waxa adiga nacab tahay uu nacaya. waayo saas u yeelay because adigu ku jecel yahay, because marabiyo inuu kugu qasbo waxa adiga jecleen oo weligaaga aadan cunin inaa u karisid asiga. cajiib. 11aad, familkaada ayuu adiga kaa jecel yahay. bal maxaan ka wadaa taas? familkaaga ayuu adiga kaa jecel yahay. markaan ku leeyahay familkaada ayuu adiga kaa jecel yahay, waxaan ka wadaa maanta adiga iyo familkaaga haddii soo barbar dhigto dhankiisa, familkaaga ayuu kaa jecel yahay more, because waqti walbo hooyadaada, aabahaada, walaalahaada ayuu wacaya, la sheekaysanaya, time la qaadanaya, wax walba ay rabaan uu siinaya. you know, nin haddaa aragti mar familkaaga inuu ku dheehan yahay oo waqti walba uu wacayo oo waqti walba uu la hadlayo oo uu wanaajinayo, haddaa aragti ninkaas waa nin adiga ku jecel oo rabi inuu mustaqbal kula wadaago. gabareey, ninkaas waa nin adiga ku jecel oo rabiyo inuu mustaqbal kula wadaago, yuusan kaa fakanin. haddaa haysatid si fiican ugu sii dheg. ninka mar haddaa aragtid walaalahaada inuu la qoslayo, friends leeyahay, qof walba friend uu leeyahay, dhanka xitaa haddoo wallaahi xitaa haddaa ay wadatid wuu ku respect gareynaya, because wax walba jacaylkaaga ayaa uga weyn asiga. maanta haddaa wadatid friends xun oo balwad laho, wax walbo isticmaalo, oo adiga friendigaaga hadduu yahay asigana ogyahay inay qoftaas xun tahay, wuu ku respect gareynaa oo wuu ku xishmeynaya sida adiga uu ku xishmeeyo kaleeta. maasha allah. qodobkeeni 12aad, markasta meel fog ayuu wax ka eegaa, hirgelinta hamiga guur ayuu markasta kugu soo hadal qaadaa. markasta qodobkan inuu laba noqdo ahayd, laakiin hal bay noqotaa, dhib ma laha. marka labadooda kala fasiraa. markasta meel fog ayuu wax ka eegaa, markasta meel fog ayuu wax ka eegaa. wuxuu isleeyahay maanta waxaan hadii oo adiga aad dhahdo waa qabanaan, saana yeela, kana yeela aad dhahdo, wuxuu isleeyahay ama waxaan hadhow dib u keenan, ama hadhow ceeb ka soo gaartaa, ama hadhow ka xumaataa, ama hadhow. intaas wuxuu saas u yeelayaa waa jacayl uu adiga kuu qabo. hirgelinta hamiga guur ayuu markasta kuugu soo hadal qaadaa. ama isguursanayna baby, ama isyeelena saan baby, familka ama u tagaa baby, ama kaasoo doonana cido, inaa nolol kula wadaagaa rabaa, inaa ifraxad kala sidaa rabaa, inaa saan yeeshidaa rabaa. nin mar walbo adaa aragto oo nin mar walbo ku leh shima isguursanaa, ama isguursanaa, saan ama yeelnaa, oo waqti walbo kusoo xasuusinayo guurkii. ninkaas waa nin ku jecel oo nolol kula wadaagi rabo
oo ilmahaada aabahood noqon rabee gabaray ka faa'iideysay ninkaas gacan ku dhig. bal hadda su'aal ay idinkeedin weydiyo, ma haysataa qof noocaas oo kale ah? 12 kan astaanood qof 12 kan astaanood aan soo sheegay qof la mid ma haysataa? haddaa haysato bal commentiga haa iga soo dheh. qof aad iyo aad u nasiib badanaa tahay 100% sanadkan aan ku jirno lama helo nin saas daacad u ah lama helo. marka gabdho waxaa idin leeyahay ka faa'iideysta jaaniskiinan, ka faa'iideysta jaaniskan oo ninkan istaamahan aan soo sheegay hadduu uu haysto uu ku tixgelinayo, uu ku jecel yahay, uu ku ilaalinayo, oo farxadaada farxadiis ka hormarinayo, oo wax walba kuu qabanayo, gabaray ninkaas uu ku jecel yahay uusan kaa fakanin oo nolol la wadaag. beri ka maalin ayaa dhihi doontaa Limonita was right. inshallah videogan haddaa ka heshay like saar, subscribe inoo saar, sina share gaday si gabar walaashiina ah ay u aragto ninka sida dhabta ah u jecel. videoga xigana wuxuu ahaan doonaa ninka oo nolosha kaa rabin, ninkaanan ku jecleen astaamaha lagu garto. inshallah waxaa idin leeyahay jumca mubaarak, jumca kariim. soo dhawaada asxaabteeda aan aad ku jeclahay. thank you for watching. haddaa halaan ila soo gaartay please haddaa weli aadan subscribe saar. teeda kaleetana haddaa nagu cusub tahay oo dadka nagu cusub aa tahay soo dhawow kusoo biir familka. maasha allah naguma qasaari doontid inshallah. videoga xigana waa sidaa hore idinku sheegay. haddaa aa rabtaana, haddaa ay idinka haystaan topic kaleeta inaan kasoo hadlo ay rabtaana waa ii soo reebi kartaan Instagram-kayga misana commentiga hoose iigu soo reebi kartaan inshallah. sidaas iyo nabadgelyo. bye bye. Ciao.